dhiiladu ma orod baa dhimashadu ma xiisaa dhakafaaray aniguye dheelmiya adduunyadu haddii dhabta laysku dhaqo oo aan dhagar laysu dhigin dhulkan nabad laysla dhuro dhaqaalaha laysu dhibin xumaan lama dhaxashadeen dadkeennu ma dhaawacmeen qaarkood kuma ay dhinteen qaraxyo loo dhigay ayaga dhiigood ma qubteen cidlada waraabuhu kama dhergeen caruurtiyo dhallaankiyo ma dhinteen aqoon-yahan waaye arag ma dhoofeen dhulka kama dhaqaaqeen dhaxalkii awoowana ma dhaheen kasoo taga hooyana dhafoorkiyo dhabanadu ma weermeen dhalintuna ma yeeleen dhibka diinta lagu wado dhacya boob ma geysteen dhaqankana ma doorsheen qaarkood ma dhuuqeen kooliyo dhangaagixis dhadadiyo ma jiifteen dhabashuu lahaa ay haddii runta laysu dhaho oo aan been laysu dhigin walaaluhu wada dhaqmaan diintana dhowraan in badan dhurwaaga ka qaaday ruux hadday wadar ugu dhuftaan dhimbilo holac oo debiyo rasaas ku dhalaaliyaan kolkaa dhaqso uga dhigaan dhagaxa ciidda ku raran waran iyo gaashaan dhigtaan dhexdooda xal keensadaan dhacdadu kolka ay dhacdiyo qofkay ku dhacdaba markaa hadday ka dhibtira dhahaan u dhiibaan wadajirkoo gacmaha meel isula dhaqaan dhurwaagu ma dheefsadeen hadday dhaar wacad maraan in ay dhowrayn dhigood dhulkooda ilaashadaan difaacya dhigtaan culculus ka dhowraan hadiimadiyo dhibaato inay ku dhacdo shisheeyuhu nama dhaheen waxaan dhegtu qaada karin saliid kama dhoofsadeen halkay tahay dhowrashadu dhuxulla kama ay dhigeen dhulkii lagu dhaadan jiray marnaba kuma dhiiradeen dhexdeenna in ay degaan soomaalidu waa dhagool dhug iyo dhaayana ma laha haddii dhinac laga holciyo digniina la siiyo dhowr dharbaaxsho xanuun la hiyo dhibaatada hoosta taal dhigooda wixii ku dhacay marnaba kuma dhaygagaan ilaa usha looga dhufto dareemo dhaqaaqa iyo malaha dhowrtaanya guud dhaliisha ma fiiriyaan